waa tahay nabadeed daawadayaal meel kastoo daafaha adduunka aad naga dhageysanaysaan halka nagala socotaan waa Soomaali Weyn Radio waa barnaamijkeeni toddobaadka iyo siyaasadda oo maanta ku eegi doono ururka isbaahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden oo caawa qabanayo xaflad lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya محمود حسين روبله oo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba waxaan wax ka weydiin doonaa arrimahaas oo ka wareysan doonaa Cabdullaahi Cadaani oo ka tirsan ururka isbaahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden Cabdullaahi waxaan kugu soo dhaweynaynaa Radio TV Soomaali Weyn waan dhawahay walaal waanu kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee waqtigaaga aad noo siisay mar labaad iyo mar saddexaadba su'aasha u horeysa aan ku weydiinayaa Cabdullaahi waxay tahay muxuu ku saabsan yahay barnaamijkan aad caawa qabanaysaan ee xafladda soo dhaweynta ah walaalaada u mahadsan tahay wareysigaaga barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay soo dhaweyn ay Soomaalida Sweden degan khaasatan reer Stockholm ay soo dhaweynayaan xilka loo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay maadaama uu ra'iisul wasaaraha cusub uu reer Stockholm ahaa oo Soomaali Swedish uu yahay marka arrinkaas waxaan si gaar ah ayaan caaw soo dhaweynaynaa si maartino muxuu ahaa aan u iftiimino muhiimadda ay leedahay Soomaalida Sweden degan in ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka Soomaaliya watahay ra'iisul wasaarahan cusub waxaynu ognahay inuu yahay nin reer Sweden ah sidee bay u arkaan amba u soo dhaweeyeen caleemasaarkii amba magacaawada uu magacaabay ra'iisul wasaarahan cusub ee Maxamed Xuseen Roble run ahaantii reer Sweden Soomaalida Sweden degan waqtiyada dambe siyaabo kala duwan ayaa markino ay uga qayb qaadanayeen dad badan inay mashaariic ay ka sameeyeen dad badanna way u naqdeen ganacsiga ay ka qayb qaateen siyaasadda kuwa kale oo wasiir ilaa heer wasiir xildhibaano gaaray dowladihii hore iyo kuwa tan hadda jirta way ku jireen laakiin xilka ra'iisul wasaaraha uu nagu cusub yahay waana muxuu ahaa sharaf gaar ah u tahay Soomaalida Sweden degan in xilalka ilaa heer ra'iisul wasaare loo magacaabo waddankii Soomaaliya watahay maxay kula tahay in ra'iisul wasaarahan hadda cusub uu ka bedeli karo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaan isleeyahay waxyaabo badan uu ka bedeli karaa tusaale ahaan waxa uu maadaama khibrad u leeyahay wadamada caalamka siyaasadooda ugu degan iyo khaasatan Sweden oo lagu yaqaano markano dhexdhexaadnimada iyo muxuu ahaa howlihii ay ballan qaadaan inay fuliyaan waxaan u maleynayaa dhinacaas inuu wax badan kusoo kordhi karo si ajendaha hadda meesha yaala maadaama uu yahay sidii doorashada lagu qaba lahaa inuu markino waqtigan uu gaaban yahay in uu markino ficilka si fiican markino uu waqtigan gaaban ficil ugu qabto waa run ahaantiina waa lagu yaqaanaa Soomaalida Sweden iyo Swedish-ka markino waxyaaba aan ka baranay kamid tahay inuu qofka handling craft uu noqdo si uu u abaaro hadafkii marka waxaan isleeyahay maadaama waqtigu gaaban yahay hawsha meesha taalan ay badan tahay inuu arrinkaas qofkii saxda ahaa uu yahay ra'iisul wasaaraha waad leedahay markaa waqtahay dabcan ra'iisul wasaaraha maaha nin siyaasadda gacan maaha nin siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiray waa nin ku cusub siyaasadda hadda Soomaaliya caqabadaha ka hor iman kara maxaynu oran karnaa sidee buu wajihi karaa caqabadahan maadaama kala guur siyaasadeed uu hadda dalka Soomaaliya uu ka jiro waxaan isleeyahay maadaama hawsha laga sugaayo uu fuliyo laga rabo ay iska aad u qeexan tahay oo ah daadiinta doorashada hadda Soomaaliya la qorsheynayo inay ka dhacdo siyaasad maadaama ra'iisul wasaaraha cusub uu ka soo shaqeeyay arrimaha bulshada oo uu hay'adaha weligiis ka shaqeey jiray waxaan siyaasadda iyo arrimaha bulshada kalama fogo taas marka waxaan u maleynayaa inay markino wax badan u fududeynayso wax macna ah badan ma sameynayso qofka inuu markino siyaasadda hore ugu jiray iyo in kale waxaa muhiim ah
inuu yahay qof og hadafka uu meesha u joogo iyo hawsha laga sugayo waqtiga hor yaallo iyo sidii markino muxuu ahaa uu dooran lahaa dadka la shaqeynayo. waa tahay waxaynu ognahay inaanu hadda ra'iisul wasaaruhu aanu dalka ku sugnayn Sweden gorma ayaa kula tahay inuu imanayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka? wallahi ma garanayo taas laakiin waxaan filaa in ajendaha hor yaallo iyo muxuu ahaa waqtiga ka dhiman ee lagu heshiiyay inay doorashada dhacdo inay aad u adkaanayso inuu markino muxuu ahaa yimaado Sweden, laakiin jadwalkiisa gaarka ah iyo muxuu ahaa arrimahaas kama warqabo, laakiin anaga ka urur ahaan waa jeclaan lahayn inuu yimaado Sweden markino asigoo ra'iisul wasaare ah oo mar labaad kusoo dhaweysaan isaga oo ra'iisul wasaare ah. ugu dambeyn haddii aan su-aal shakhsiyana ku weydiiyo, ugu dambeyn waa aqoon intee leeg ayaad u leedahay ra'iisul wasaarahan hadda la magacaabay? aniga ka shakhsi ahaan Cabdullaahi Cadaani gudoomiye ku-xigeenka ururka ma garanayo aqoon gaar uma lihi, laakiin ururka maadaama ururka Soomaalida ay leedahay oo Sweden ururada ugu waaweyn uu ka mid yahay dhowr iyo 20 sano jiray, gudiyada hadda qaar ku jiro iyo kuwa hore u soo maray ilaa heer gudoomiye ka soo noqday ay aad markino isugu fiicnaayeen. marka aniga shakhsi ahaanteeda aqoonta waxa uu gaar ah ay u soo kordhinaysa maadaama dadkii agagaarkayga jooga dhan ay markino shakhsiyadiisa wanaagsan ay si fiican u garanayaan. waa tahay aad iyo aad baanu anaguna kaaga mahad celinaa waraysigan aad nasiisay maanta TV radio Soomaali weyn waxaan kaaga mahad celinaa waqtigaaga quruxda badan leh iyadoo waqtigu uu ciriiri nagu yahay oonan sii wadi karin annagoo halkan waxaanu hambaliyo gaara ugu diranaa haddaanu nahay bahda Soomaali weyn TV iyo waliba ururada BSK iyo SSV iyo Geesguud Angred Esko iyaguna si gaara u hambalyeynaya ra'iisul wasaarahan cusub ee la magacaabay, sidoo kalena u hambalyeynaya ururka isbaahaysiga ummadda Soomaaliyeed garabka ay siiyaan markasta ummadooda Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta ay u hayaan ummadooda Soomaaliyeed. aad baanu kaaga baahan celinaa Cabdullaahi waqtigaaga. halka aad nagala socoteen waa TV radio Soomaali weyn xaruntiisa magaalada Gothenburg. waa barnaamijkeeni toddobaadka iyo siyaasadda oo idin daadihinaysay anigoo Nimca Sagal Xaajiya, xagga farsamadana waxa inoo qaabilsaneed Fahmaan Maxamuud. tan iyo intaynu dib iskugu iman doono sidaa iyo ammaan Allah. xawaalada Maalsam waana xawaalad degdeg iyo amaano leh oo meel kasta aad joogtaan eheladiina gaarsiinaysa lacagta aad u dirtaan ballanteennuna waa maalsam.c. waa xawaalada Maalsam meel kasta aad joogtaan bidigtiina Maalsam ayaa taagan.